qofka mu'minka ahi wax kasta oo uu qabanayo ama uu ka fakarayo wuxuu rumaysan yahay inuu ilaahay gacantiisa ku jiro. qofka mu'minka ee dhabta ahi quruur kuma dhaco iyo cujb isla weyni iyo anaa caqli badan iyo anaa karti badan iyo kaama rumaysana. qofka muslimka wuxuu rumaysan yahay ilaahay inuu markasta u baahan yahay. markaa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ina baray mar kastoo inuu ilaahay sortaagna inaynu akhrino iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin. ilaahu adaanu ku caabudaynaa keligaa baanu kaa kaalmo dalbaynaa. qofka muslimka ahi mar kasta baahidiisa waa qof ilaahay u bandhiga, waa qof muujiya inuu yahay addoon daciifa, waa qof rumaysan laa xawla walaa quwata ila billaah. cabdillaahi ibnu qays buu nabigu yidhi maku tusiyaa kanz min kunuuzi ljanna, khasnadaha jannada ka mida makuu sheegaa? faqultu balaa yaa rasuula allah, haa buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow. xadiidka saxiixayn ku yaal nabigu wuxuu ku yidhi markaa laa xawla walaa quwata ila billaah weeyaan. ilaahay oo aan gargaarsada mooyaane anigu xawl iyo xeelad iyo quwo iyo itaal midna ma lihi. nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabigii uu jeclaa ee mucaad ibnu jabala wuxuu ku yidhi yaa mucaad wallahi innii la uxibuk, ilaahay baan ku dhaartay mucaada waan ku jeclahay buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. markaasuu mucaadna wuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo ariguna waa ku jeclay. nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu yidhi kelmadaan ku barayaa ee salaad kasta dabadeed ha ka tegin. allahuma acinnii calaa dikrik wa shukrik wa xusni cibaadatik. wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam mucaad ibnu jabal waxaad tidhaahdaa ilaahayow iigu gargaar xuskaaga, inaan ku xuso aanan ku ilaabin, inaan kuu mahadnaqo aanan kaa gaaloobin, iyo si fiican inaan kuu caabudo. ilaahu kaa iigu gargaardhe. nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu inagula dardaarmayaa kow ixris calaa maa yanfacak, wixii ku anfacaya inaad ku dadaasho, waxaan ku anfacayn inaad ka tagto. wakhtigaaga iyo maalintaada iyo xooggaaga iyo cilmigaaga iyo aqoontaada iyo hantidaada iyo garaadkaaga iyo waxaad awood leedahay oo dhan waxaad ku isticmaashaa waxa ku anfaca. dadka in badanoo ka midi waxaabay dhib ku ah wakhtigoodaba, marka waxay raadinayaan waxay ku dilaan, waxay ku madadaashaan. madadaaladu waa wuxuu rabo qofku inuu wakhtigiisa ku baabi'iyo, xooggiisa iyo xoolihiisa iyo caqligiisa ku baabi'iyo, aan adduunkana manfac ku lahayn aakhirana manfac ku lahayn. qofna isagu wixii dhibayey baabuu wakhtigiisii ku bixiyey wax xaaraan oo aan diin ahaan ku bannaanayn oo caqiid ahaan bannaanayn oo ayuu ku bixiyey. sheekada ugu badan ee soomaalidu ka sheekaysaa waxtar ma leh. siyaasadda iyo qabiilka iyo reeraha iyo waxa laga sheekeeyo o dhamme waxtar ma leh. kubadaha iyo cayaaraha iyo wax la daawado o dhamme waxtar ma leh. wararkan habeen iyo maalinba la dhegaysanaya la wado intooda badani waxtar ma leh. wax badan aan waxtar lahayn baa dadku wakhtigiisii ku qaada. nebiguna wuxuu tilmaamayaa min xusni islaami almar'i tarkuhu maa laa yacniih. qofka muslimkaa islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa ka mid ah isagoo ka taga waxaan macno u samaynaynin. sidaa awgeed buu nebigu wuxuu ina leeyahy ixris calaa maa yanfacuk, wixii ku anfacaya ku dadaal, isla markaana inaad ilaahay tala saarato oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aad u tala saarato wax walba. wuxuu nebigu raaciyey markaa taa cagsigeeda waxaa dadka u diiday inay wax qabtaan. walaa tacjis buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, ha caajisin. qofka bini aadamka laba wax baa ku dhaca bay yidhaahdaan, alkasalu waalcajsu bay yidhaahdaan. kasalku waa qofka wahsiya, cadamuliraada, waa qofku aan doonisba lahayn, inuu wax qabtaba rabin. cajsiguna waa qofkiiyo raba inuu wixii qabto laakiin haddana qaban karila, u taagla. cadam alqudra, shaqo kastoo la qabtaa waxay dhahdaan labadan shay buu camalku ka kooban yahay, inaad waxaad doonaysid iyo inaad awoodid. markaasuu camalku kuu qabsoomaya, inaad doonaysid inaad qabato iyo inaad awooddo. dadka badh ayaa wax kastoo ay qabtaan taswiif ku sameeya, insha allah berraan samayn doonaa. war maanta aad qaban karaysaa, maxaa berri camal kale u dhigo? maya berraan samayn doonaa, wax kasta berru u dhigaya. ama maahe brogramyo iyo barnaamij buu degayaa
markaasuu leeyahy insha allahu saasaan yeelaya sanadka dambe qur-aankaan xifdinaya sanadka dambe waxaan rabaa jaamacadda ee balas inaan kaga baxo insha allah waxaan rabaa waqtiga soo socda tijaaradaasi inaan galo waxaan rabaa kutubtaa inaan dhigto waxaan rabaa cibaadadaa inaan sameeyo laakiin afku ka leeyahay waa barnaamij afka ah camal ma gaadhayo isuma bedelayo maxay wax camal isuma bedelayo in wax la bilaangareeyaa ma xuma laakiin waxaad bilaangareynaysaa waa inuu yahay waxaad awooddo qaban karaysa marka koowaad shay fii maqduurik waa inuu yahay waa inaad qof riyoonaya noqon dadka badh baa day dreaming adoo soo jeeda inaad riyooto maaha waxaanad samayn karayn haddaad iska wadwado waa riyo kale un dadkii hurdaa riyooda dadka soo jeedana qaar baa riyooda waxaad bilaangaraysay waxaad qaban karta waa inuu noqdaa marka labaadna waa inaad fulisaa fulintu dadka badh baa fulanima haysaa armaa dadku kula yaabaa armaa si xun lagu eegaa armaa shaki unbaaba iskaga soo ururaya dadka badh oo wixii uu qaban lahaa u diidaya armaa lagu idhaahdaa waxaan wuu istusaya waxaan kan buu samaynaya laakiin nebigu wuxuu ina leeyahay ixris calaa maa yanfacak wastacin billaah walaa tacjis marnaba ha caajisin bale nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigii u shaqayn jiray anas ibnu maalik ahaa ayaa wuxuu leeyahay anuu nebiga u shaqaynaya wuxuun baan maqlaa isagoo ku celcelinayoo leh اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال سيكون العلني يقول إله وحن كام مغنقلي ورورك يو البهارك يتيران يدي يمروقده همي قوا وحصاص عدا وقفك كورورو مستقبلك ولا مدوباده أو دبتنا قفك ورورو حزنقنا ووحي كتجي قفكه وطيراية يمرق كريبة إذا ولا بورور أما لا بول بهار لكن وحي كسل يسيهين مدنا ووحي تجي مدنا ووحى صوص عضه نبي عليه الصلاة والسلام لبدا إلهي بك مجنجلي وحكلوا إلهي كم مجنجلي العجز والكسل والله بدن حنونا إنه هذا الشيء جيني qofku inuu cadam ilqudra inuu xawoodi waayo ama in doonistuba ka dhibato oo dadka badh baa wahsiga iyo hurdada mooda inay nimco tahay waa raaxaysanaya buu leedahay tan uu jiifaya saa baktiga waxba nolosha hurda kuma soo kordhiso qofku waa inuu hurdada seexdaa intuu uga baahnaa intuu caafimaadkiisa ku ilaalinayay intuu nashaadada jidhkiisa uu dib ugu soo noqonaysay sida awgeed buu nabigu wuxuu ilaahay ka magan galay wahsiga iyo waxtaryarida wuxuu kaloo ilaahay ka magan galay bukhliga iyo jubnigu waa baqaha waa qofku markuu wahsado dee wixii uu ka baqaya dabeetana si aad u sugaysa walaadii baraad qaban inaad u leedahay ayay iswada fuulaysa hadhowna waxay gaaraysaa shaqadii waxaanad qaban karinba bukhliguna ووحي أو أنفع دتك قارينين وضلع الدين وغلبة الرجال وحاول نبغو شاقنا وحكرت ما دينته وكا حق بضته هي بني آدم وكا حق بضته حديث كان وحاول تلمام يا مركز صاد وضومنه قف مسلم كينو قف أكتفه قف نشيطة قف فرعون قف ربا وحقبته قف عمل الدنيا مد آخر مدون كفوجن qof aan noloshiisu khasaare noqonin ama waqtigiisu khasaare ahayn ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamaya walidaalika buu nabigu wuxuu tilmaamayaa waqtiyada qaarkood ayacjizu axadukum buu nabigu yidhi waar midkiin miyuu kari waayaya an yaksiba kulla yawmin 1000 xasana maalin kasta inaad 1000 xasana shaqaysato miyaad awoodi kari waayeysa nin raggii meesha fadhiyey baa wuxuu yidhi kayfa yaksib axaduna 1000 xasana oo midkaa yasuu كن حسنة وشقيسان كرا كن أجر وهيلي كرا قال يسبح 100 تصبيحة فيكتب له 1000 حسنة تبغى القربة سبحان الله وراني سايو حلقو قرية سبحان الله انت كا قادنيس بقول قرا سبحان الله less than 1 minute
كورن هل دقيقة أو نولش هذا كمدة هداد كن حسنة شقيسان كرتو ساعة دي مسات شقيسان كريسة وحماشة تعالى مركا نبي وحو لي قف كاسي سبحان الله يجي هذا التصبيح ده لا يماده كن حسنة والله قرا أو يحط عنه 1000 خطيئة أما كن دنبال لقدقه عجسو دد بو غاري inay xataa awoodi kari waayeen inay ilaahay baryaan ilaahay baryadiisa xataa inay ka gaabsadaan sawgeed buu nabigu wuxuu leeyahay acjasu nnaasi man cajasa can idducaa acjasu nnaas man cajisa can idducaa dadka waxaa u caajisnimo badan dee ninka awoodi kari waaye ilaahay inuu baryo waabkhalu nnaasi man bakhila bisalaam dadka waxa kale u bakhaylsan buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qofka dadka kala bakhayla inuu ku yidhaahdo assalaamu calaykum assalaamu calaykum waa duco inaad dadka u ducaysad kala bakhaylaysa ayuha alaxiba waxay leenahay cajsigu marar badan buu noqdaa jahliga marar badan buu sababtu cajsiga keenta ay tahay aqoon darrada waayo subxaan allahi haddaanad ajarkeeda garanayni waa aqoon darra ku haysata aqoon darradu waxay keentaa qofku inuu waxba qaban waayo hadaad aragto qof aydhal ah jahlnima haysata walow uu xoog badan yahay walow uu dakaagiisu intelligencekiisu uu sarreeyo walow uu caqli badan yahay mar haddaanad muntij ahayna wax soo saaraynin nolosha aynu joogno bini aadamku waqti isku mid u haystaa inta badan dadku 60 jir 50 jir 70 jir meelaha waa soo wada gaadha laakiin midhaha iyo raadkay dunida kaga tagaan iyagoo isku waqti noola waa kala nooc waxay yidhaahdaan nolosha waxaa qiimaha ku sameeya ma aha inaad caqli badantay ee waxa weeyaan bay yidhaahdaan inaad hardware kar tahay nolosha taasaa raad ku leh qof xoog wax u qabta inaad tahay garadka badane hadduu hurdo dhalo waxba tari maayo si kastoo aad daki u tahay haddaad qof laysiyatay qof aan firfircoonayn haddaad tahay garaad bandidu waxba kuu kordhin mayso si awgeed buu nebigu wuxuu tilmaamayaa amaba se aan aayadda qur-aana tilmaamo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur-aan ku tilmaamay qof dhan oo bini aadam ah oo intuu dembiilo noqday arday u noqday tuke qiyaas inaad tuke arday u noqotid tamar darradu halkay gaadhay سدرادت بها إلهي وحليه فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين إن آدم كي ولا الكي دلي مركو الدنبي جيستي ولو حوق وينا يحوق ولا الكي كدلي وقبي kadib aqoon darrada haysatay waxay noqotay si uu galo meydkii walaalkii buu garan waayay ilaahay baa wuxuu u soo diray tuka markaa aqoonta ah in wax la xabaalo baray tuka kaloo dhintay godu qodayoo aasay wuxuu baray markaa in wax la xabaalo wuu halaan halay ama wuu calaacalayo wuxuu leeyahy yaa waylataa acjastu an akuuna mithla hada alghuraab halaagaygiiyow kaalaye ما وحن كليتا ما وحن كوحتر حماضي إن تكها سكلا نقضه إذا جهلي وتكو معلن كهجدي تضبطن وما تصوماليه دوس كفر فرديا وحي لا فرديا وحي قبتان بيجرم واي جهلي كفريسي برسل الله قطع ما قرنايو وحكى لسي الله سمايا ما قرنايو أقون سي الله برتا ما قرنايو جهلي بفريسي جهلي ومركز دتك ودليه إذن أقونته هي علمه ومن القوة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير قوة الشيء يا أقونتها كمدة سأوجد أيها النبي عليه الصلاة والسلام إن قال دردار مياه استعن بالله ولا تعجز إلهي كالميسو
واستعانة إلهي كالميسو أنا عاجزين قرآن كان إلهي وحي نوت المامية إن بدن با إلهي وحي قرآن كقورة ما يرير بارو إسرائيل لليه خذوا ما آتيناكم بقوة وروح عن دين كانوا يدين سودة شني ورسي اجتهادي يفر فرعوني حوق وكتشرو خذوا ما آتيناكم بقوة با إلهي ليه نبي موسى محا إلهي ليه وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها إلهي نبي موسى كلي فخذها بقوة سددال هي تمر كتشر تقوقاضا خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا مركي إلهي والنبي يحيى لهد لي وحلالي يا يحيى خذ الكتاب بقوة والنبي يحيى كتابك سي حوغان وقاد بالليل سي جدية سي اجتهاد كتشرو سي ددال يفر فرعوني كتشرتو إلهي كتابك سوق هذا بالليل وحا قرآنك إلهي وكسي فينيا دادك وهسك يا عكسك هيا إن استفادة منافقين تطي وهسك إلهي وحلي إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى منافقين إلهي وحكوت المامي صلاة هذا وكعا وكوكعا إيغو كسالى إيغو وهسي يا عاجس هيا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى صلاة لما يمادان با إلهي يدي إيغو حالة كسوغان مويان أيها الأحبة markaad wahsato acmaashu way isfuulfuushaa wixii maanta kugu habboonaa inaad qabato markaad qaban weydo wayse sii kortaa sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu ku tilmaamaya yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum idaa qiila lakum infiruu fii sabiili illaahi athaqaltum ila alard war dadka mu'miniinta ahu maxaa idinku dhacay oo haddii la yidhaahda ilaahay tiisa usoo baxa jihaadka usoo kaca athaqaltum ila alardi baa layidhi maxaa dhulka idinku cusleeyey ayaa ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala maxaad dhulka isugu nabaysaane u kici kari weydeen aradiitum bilxayaati addunya min alaakhira ma adduunka aakhira ka jeclaateen baa ilaahay leeyahay famaa mataacu lxayaati addunya fi laakhirati ilaa qaliil ilaa tanfiruu يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا أيها الأحبة kuwa munaafiqiinta jihaadka ka wahsada ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay sifaadka munaafiqiinta ka mid tahay taasi yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum fanfiruu thubaatin aw infiruu jamiica waina minkum laman layubati'anna waxaa idin ka midaba ilaahay leeyahay mid dadkaba cagsi gelinaya o fadhiisinaya oo dib u reebaya waxay yidhahdeen daraasaadka cilmiga ee dambe xataa caafimaadka qoladan maanta ka shaqeysa waxay tilmaamayeen daraasay tilmaameen cilmiga Hong Kong ay ku sameeyeen oo dadka Hong Kong baadheen markaas waxay yidhaahdeen laziness-ka iyo waxqabad la'aanta iyo sigaarka bulshada keebaa dadka leyntiisa ku badan bay dhahay sigaarka waxa la wada yaqaanaa inuu sun yahay oo boys iyo dadka laayo cagsiga iyo iska fadhiga ka batay iyagu daraasaday sameeyeen qolana 6,800 meelaasay noqotay qolana 5,700 maanta waa kuwan yiraahdaa xanuunada ugu tirada badan ee bini'aadamka ku dhaca waxa keena bay yiraahdaan maxay exercise laan exercise la sheegay inaad boodboodo quran ma waa inaad wax qabato laakiin haddaad iska yuururto una fadhidid qof fadhiya habeen iyo maalinba caafimaadkiisa ba khatar ku jira ka kaalay nolosha inaad wax tar ku yeelato iyo wax soo saar inaad yeelato ee waxa khatarta galaya waxa weeyaan maxay adiga caafimaadkaagi ba khatar galaya ولذلك بقى أطباء ما أنت واحد الماميان قفكوا إنه نشاط سكيليو ما معان بعد غبطة ما سكر بعد غبطة ما كم بعد غبطة ما أنت صعو أنت قبو أنت يعني هو وحقبو فردقوا مركا عقلي أنا وما في عنا إسك فردقا وحبل لقوا قوانيني شركنا وما في عنا آخرنا وما في عنا أدونا وما في عنا ليزي نسو مركا نولشة ميل لبا وحكا قمالي وحا ميشة الله قفك مؤمن كي إنه منتج نغضه qof wax soo saar leh inuu noqdo waliga hamoodina waqtigu ku dhaafay dadka barbaa isle faataka alqataar ka sheegi jireen
يعني وقتي بتجي أنت ماشي فدي أنت كوها ضيع عمرك بقى وحصار يالن كرتا حلقة ودك بريسة وما تكون تنشربات يا محبط بركة ريسة تدبا كنت تنشرين تكون بلابين علماء دي ويني دوني ده نقضي ما garanaysid cimrigaagu intuu ku gabagaboobi doono ma garanaysid inta ilaahay adiga chance ku siiyey adigoo waxa ku xilka ku saaran wuxuu yahay inaad rumaysato cimrigu weli mutasac baa jira nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo taa inugu dhiirinaya wuxuu tilmaamaya in qaamat isaaca wa fii yadi axadikum fasiila fain istataaca an laa taquum xataa yagrisaha falyagrisha nabigu wuxuu leeyahay hadduu qiyaamuhu xaggaa ka soo bilaabo soo kaco oo aad gacanta ku hayso fasiila fasiilada waxaa la yidhaha geetimireedka yara la abqaalayo geetimireed yar aad gacanta ku hayso haddaad ka gaadhsiin karta inaad abqaasho buu nabigu leeyahay abqaal beer haddaad ka gaadhsiin karta beer oo innaga iyadoon qiyaamaba inaan arkaynin baynu fadhinaa unoo leenahay waan gaboobay soomaalidu dee 40 jirkay ku gabowdaa soo maha في Soomaaliga markuu bini aadamkuba uu xoog badnaa markuu gaadho ayuu yiraahdaa waan gaboobo wax walba way ka dhamaadeen bini aadamku aqligu ka gaboobaa haddaad maanka ka gabowdo ayuu mad gabowde inta kale waxbaad qaban kartaa inta kale waxbaad qaban kartaa sawgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa qabla al-mawt in furas jiro inta geerida ka horeysa inaad fursad haysato fursad wax lagu qabto inaad haysato waxaad yareysanaysaa wax weyn noqda waxaad yareysanaysaa maxaan uga jeedaa sadar quraana inaad qaybtaa waa wax kula yar soo maaha xasilada haddaan maalin kasta sadar qaybo goormaan quraanka dhammayn haddaan sadar qaybo goormaan quraanka dhammayn waxay dhahaan dhowr iyo 10 sannadood baad ku dhammaynaysaa haddaad maalin kasta sadar qaybto hadda waa sadar hal sadar waxay dhahdaan waxqabadku taraakumka beeritaanku qiimaha ku sameeya markanaad qabanayso wax yaraantiisa ayay kuu muuqanin haddaad maalintii hal safxa qorto hal page haddaad maalintii qorto sanadkii imisaad soo saaraysaa ugu yaraan 2 buug baad qori kartaa sanad kasta waayo sanadku waa 365 maalmood dad maalin kasta page qorto macnaheedu waxa weeyaan ugu yaraan buug 300 page ka badan ayaad qori kartaa laakiin haddaad tiraahdo ma xaashi aan qoray ba buug noqon doontaa maxaan xaashi ka qori doona aqoontu iyo waxqabadku iyo waxtarku taraakumka inay biirtaabay wax ku noqotaa wax kasta oo biira aakhirka wuxuu tagaa maxay wax qiimo leh buu noqdaa taasa waxay keensanaysaa inaad waqtiga waxba yaraysanin nin wadaada wuxuu ii tilmaamayay jaamacad buu master degree ku qaatay isagoo shaqo kale markaa wada inta uu gaariga soo socday uu gurigiisa ku sii socda buu dhageysan jiray una cajiladii jaamacadda warkeeda inta loo duubo ayuu wuxuu dhageystaa inta maxay uu gaariga sii wado hadda inta gaariga gurigaaga jaamacadda inta tagtay gurigaaga ku sii socota inta aad dhageysato ayaad ku qalin jabin kartaa laakiin waa hadday taraakumto de waa haddaad maalin walba sida tan u dhageysanayso marka waxaan uga dan leenahay camalku iyo waxqabadku iyo waxbarashadu iyo wardigu iyo wax waliba in la biiriyaabay wax ku noqdaan in la joogteeyaabay wax ku noqdaan camalka inaad joogtayso ayuu wax ku noqonaya ilaahina wuxuu ina leeyahay walaa tahinu walaa taxzanu waantum laclawna in kuntum mu'miniin war dadka mu'miniinta wahniyo idinku dhicin haniyad jabina hana murugoonina idinkaa koreeya baa ilaahay tilmaamaya haddaa kuwa mu'miniinatiin haddaad dariiqa iimaanka raacdaan waa koreynaysaa xataa markan awooddaadu intaad qaban kartaa ha yaraata laakiin intaa qabo sawgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahay waka'ayyin min nabiyyin qaatala macahu ribbiyuuna kathiir فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين بدنا أنت النبي قاتل معه ربيون معيسى إلا دقال قالين كوا
rabbi loo nisbeeyey dad ilaahay isu dhiibay oo may daciifin wixii dhib soo gaadhay may isdhiibin may isdhuldhigin ee waxay noqdeen dad walow markaa ha lagaba xoog batee wada camalkii ilaahay intay natiijada ka gaadhayaan ayuha alaxiba marka xadiiska kan wuxuu nebigu ku gebagabaynayaa calayhi salaatu wasalaam weer tilmaamaysa ereyga low ah wixii kaa tegey tiiraanyadooda inaanad isku mashquulin oo wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ha odhanin bal ma haddaan sidaa iyo sidaa yeeli lahaa waxaasaa soo bixi lahaa saasaa noqon lahay fa ina low taftaxu waxay furtaa low waa camal shaydaan albaabka shaydaankay furtaa oo maxaa jira alqadaa walqadar mar hadduu ku dhaafo lama calaacalo qaar baa waxay yidhaahdeen low kaanuu cindanaa maa maatuu wamaa qutiluu haddayna la joogi lahayn waa kuwo munaafiqiina waxay leeyihin muslimiintaa soo dhimanaysa hadday iska joogi lahaynoo nala fadhiyi lahaayeen maa maatuu wamaa qutiluu manay dhinteen labana dileen ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u tilmaamayaa qul low kuntum fii buyuutikum labaraza aladiina kutiba calayhim alqatlu ilaa madaajicihim waar xataa guryihiina haddaa ku jirtaan intii wakhtigu ka dhammaatay geeridu way u iman lahayd baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala saa awgeed low waxay culamada qaar yidhaahdaan mowdicu tacliimkuunbay ku fiicantay ayaa la isticmaali karaa oo maalan jaamacad baad ka soo qalijabisay wixii aad barataa marketka aan shaqo ku lahayn qof yar baa ku yidhi ila tale markaasaa waxaad ku tidhi maanta haddaan jaaniskaa haysan lahaa low kaan haddaan jaaniskaa haysan lahaa kan maan galayna kaasaan geli lahaa waa litacliim qofkan baad rabtaa inaad tidhahda war natiijada anaa waddadan soo marayoo ma fiicne waxaad isku daydaa maxay kan kale inaad saas daraaddeed buu nebigu lahaa low istaqbaltu min amri ma stadbartu markii ay ugu tilmaamayey dadkii soo xidhay cimrada ama xajka soo xidhay ee xalaaloobi kari waay ee hadyiga waday haddaad hadyidu waddo ma xalaaloobaysid haddaan arrinkayga hadda wixii soo dhaafay hadduu hadda ii bilaabmi lahaa buu nebigu leeyahy hadyigana maan soo kaxeeyeen dadkana waan la xalaaloobi lahaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam culammada waxay yidhahdaan markaa min baabi tacliim iyo meelaha hadday tahay waa bannaan tahay laakiin baabu calaacalka hadday tahay bay leeyihin ma bannaana oo waa maxay qul maa shaaa allahu kaan waa inaad rumaysataa wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah ina allaha kaana caliiman xakiima wixii tegay waxba kama bedeli kartid maadaama aanad waxba ka bedeli karaynin ilaahay wuxuu tilmaamayaa wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah ilaahay wuxuu doono mooyaane wax kaloo idinku dooni kartaan ma jirto ina allaha kaana caliiman xakiima bale waxaad ka calaacalaysa waxaaba laga yaabay khayrku saa ku jiray وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم waxaan kusoo koobaya markaa xadiidka dhammaantiiba nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay mu'minka waxtarka ah ee nafciga leh ee xooggiisa iyo caqligiisa iyo wixiisu qabanayo nashiidka ku firfircoon qawiga ah ayaa ka khayr badan mu'minka daciifka ah mu'minnimaduna dhammaanteed waa khayr marka horeba dardaarankaana weyna siiyey wixii ina anfacayana inaynu samayno ilaahayna inaynu gargaarsanno cajsiga iyo kasliga iyo waxaana inaynu iska dayno wain asaabaka shay-un falaa taqul haddii wax sidii aad rabtay natiija u dhici weydana ha odhanin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaan sidaa iyo sidaa yeeli lahaa laakiin waxaad tidhaahdaa qul qadara allahu wamaa shaaa facal فإن لو تفتح عمل الشيطان صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم